عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين وناسن مالو بدونك جوكتان ومالش هذا أو هبين سين سوق ريسو بيشون تاشنتي بيش الشناد لبضكنا إلى تاني أفرطة. هبين وناسن عوا برنامج كين وحن كسوق هذا دونا الله نحرست جرنال كورنيل قشانة ده كورنيل آدم بيت أورنتي نين سومالي مقع كلها سراكيش سومالي عيدك بريس كورة كمدها استمر كاسيا مدح عيدك بان بيدا كيريدي نحتين تلاهيد يدلكي أرحن ترادا لها كدعي هالكو كشغيني سكول بوليسيو تاسو آن آدي أرقاق حوله هذا ودلكاسي يا لقو ايدين كرا أم ايدي اسكالات لهذا ماشي سدل مكدع جري وحان عاو بارينا بارتان انكولينا بارتان هراء وحان فيرنينا أفر شيئا فيرنينا أفرت شيء أو بارت أو مركي شيء لباراي لقى هدية أو لقى قبل شيء كست قبلين وليه أما وحليه وحلي رادو تصاران هيدروجين أكسجين مركي فالقران وحي نقدان بيئة أي نقدان مركا فالقر كاسل مركي أنت صار مسوي ماذا وحي ماذا وحس مركي دلوا دعوة وحلا غير هدية ما جرت أفر شيء لقى بعد الجوا أما مركي قاركود ليه عم تضوى بنقطة لكن أفرت أيو دور كرون أيان عاو سوق هذين الأرض هذا وحاول انتي وحيتاي وحلا الديد تدبا وح اسكا غوري مادين تدبا اسكو ديدين هذا وحلا اسكو ديد وامحي وارنتا قبريدا صومالي وقبريدا وليس ادم بيقف دغال غرافات ميسن احمر انا بيدنا وانين ودنيد الصوماليد اد وغوينتاي انا بيدنا وانين مارتيش قضيه بوليسكو اد ولوين دولك بوليسكنا واد ياد ولوين runtii aadan bid waxaan dhihi karnaa waxa uu dhintay qadiidii booliiska Soomaaliyeed difaaca dhulka booliiska uu lahaa darteed ayuu dhintay asagoo markaas shirinaya ama la arkay asagoo shirinaya saraakiil kala hadlaya arrinta dhulka taas wararka xaqiiqada aniga aan la qaybsay maadaama uu sarkaal hore dadka hore shaqeynayay waxa isku soo gaarnay waliba isku soo gaarnay muddo shaqeynayay waxaan dhihi lahaa walow asagoo ahaa dhanka fanka haddana ما وقتها أنصار كجرنا وقتها عيدها أو دبل دقيقة في ستوينك عيدك بوليسك كويلات أكتوبر مناسبات يعني سكوار كجرنا أنا بيت الحاصل وكداي الله نحرسته لكن حاول أنت أنا بيت روح حاول أنت قديدة هويداني لا عوادس وقديدة سكول بوليسيو وصيا وبانتاي تومدا ما كده هاي وهو واضح هاي وصاصتك مناي لكن مركي وحلا بالقبلين هاي
markii wax laabaleynayo waa sida in sheego waxaa laga fiirshaa kow marka horeysa ma jirta wax asiga lagu diidana ama cid is diidanayn cid kale isma diidanay aadan bid nin magaaladiis mara labo meesha lagu dilay yaa kaaga dhawaa meesha lagu dilay saraakiisha booliiska dhanaya degan meel amniye ay ahayd meel dowladdu ay degan tahay fal dilana inta qof ka geysto ay ka faka karin laakiin waa fal soo qorsheeyay si farsamo soo qorsheeyay aadan bidna lagu dilay sidan loogu fakaday meeshaas waxaa degan kow waxaa degan jeneraalo badan jeneraal waxaa degan ii sheeg maxaan ku ihahdaa cabdullaahi bulukobi jeneraal dhagacleyn jeneraalo badan ayaa degan waxaa kaloo degan saraakiil badan waxaa kaloo degan wasiiro waxaa degan xubnaha dowladda o dhan baa degan waa meelaan dil ka dhicin laakiin dilkaasi waa dil aan loo aaneynaayo cidda gacanta deegaankaas ku haysa haddaba yaa deegaankaas gacanta ku haya waa loogahay xukuumadda gacanta ku haysa haddaba waxaa la dhihi karaa asiga xukuumadda ma is qabteen yes xukuumadda waxay isku qabteen qabriyada arrimaha qabriyada waa jirta taas xaqiiqa waa shirar uu hayay sidii looga hortegi lahaa isla markaasina oo looga hormaan lahaa tii ayada marka la arkana hawada laga saaray aadan waa si aan is leenahay marka was qabasiinaynaa ilaan mogta kow waa inay jirta cid is qabsadaan labo waa inay jirtaa aagga lagu dilay yaa xukuma awooddaas kule yaan awooddaas kule meeshaas wax ku dili kara waxaa wax ku dili kara xukuumadda laba ma tahay saddex waxaa la dhihi karaa farsamada iyo qaabka loo adeegsaday ma qaabka loo adeegsan waxaa laga cabir qaadan karaa cidda adeegsa waxaa laga cabir qaadan karaa in la tuumi karo qoladu madaxjibiska maaha baawura diimidkan waa dilay waa afka baawur kale isku geys wadada waa loogu talagalay xukuumadda waxaan dhaafsanayn haddaba haddaa intaasoo arrimo isku dhufato waxaa ku samaysay in aadan uu dhintay difaaca deegaanka ciidanka booliiska lahaa aan kasoo gudubno waxaa jirta damdamiska dadka soomaaliyeed korimid waa la diiday kadibna waxaa loo soo wareejiyey meeshana la rabaa in laba daarood oo mataanaa oo dabaqyaan laga dhiso haddaba danahaasi cidda dhisatay waa cidda aadan lagu tumayo waxaan arkaysa weliba dowladdu inay ka galgalatay waxaad arkayseen ninkii ahay muxuu ahaa ajax wiilkiisa la keen dhigta laga soo qabto waxaa tira ana aabbahay qabriga kala baxay war ilaahay baan ku dheershay soomaaliya dadku inay wax gartaan fiican ma nin caaw qabriga aabbaha tay ka soo baxsanaa jiro aabbahan qabrigiisa ka soo bixinoo meel kale aan gashana waxaas fiiri yaa loo sheega yaa laga dhaadhicina yaa fiiri annaga in nagula ciyaara maaha mogta aqligeen ma lagu ciyaari karo waxaa way aabbaha qabriga anaa kala baxay anaan kala baxay dhehwa aad iyo aadaan ayaan daradooda ka dhacday kamid tahay in taas laga raasho weliba haddana isla booliiskii laga dhacay oo difaacayo oo leeyahay hadal wallahi cabdifatax wax kuma cabdifatax hadda waxaan weydiina caawa waa waca waxaan weydiina cabdifatax haddaba iga qabto iga qaban maa ogahay inuusa iga qaban be waa afhayeenka booliiska waxaan waca wax kala maa waxaan waca waxaa waye aduba ballan qaadi kartaa inaan meesha xole dhisin ya laa ilaaha illa allah maxamed rasul ilaah adaa jiro jaliil waxaan la yaabanay wax la sheega waa ka weynaata baasha sheegtaan way dhaaftay in la sheega way dhaaftay waxaan isku daynaa bal cabdifatax laftiisina waan insha allah waa sugi lahay الو السلام عليكم احمد محمد احمد ايوه صاحب في عنتها ايوه ورباير عافمتك ويلا صعدتاني waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo arrintii oo dhulkan la jabiyey oo booliisku lahaa ayaan rabay inaan wax kaa weydiiyo ma fahamtay arrintan dhulkan oo school booliisiyo arrintan school booliisiyo dhulkan ay maaragtay iyo geerida aadan biid dilkiga aadan biid arrintaasaa rabay inaan wax kaa weydiiyo booliiska soomaaliyeed waa la dhacoyaa habargidii abgaala dhaco sheekh see loo dhacaa saaxiibo marka arrintaas marka waa ku sii karaa wixii qowlaas ku saabsan waraysigu laakiin hadda
habeen dambe newska dhigaa daarabtid insha allah warniyow horta waa ku maasan tahay laakiin cabdifataax arrintan arrin fiirsan kara maaha dadka soomaaliyadna aad su-aalo iskaga weydiinayaan niyow maxay kula tahay dhulkan ma hoteela laga dhisi rabaa maya horta kan iskool buluusi maaho ha kan iskool buluusi maya hotel lagama dhisi rabo ciidanka meeshuu ku dabdhigi lahaa waaye ciidanka waxaa la rabaa ciidankii aadi jiray dugsigii oo turkida aadi jiray aa la joojinaa ninka akademiyada ku tababaranaa toos wuxuu tagaa meeshaan akademiyada u dhow tagaa micnaha meel dheera la diidan yahay والله إني هرت الله ونحرستني كي آذن ها صاحبك يا هرت وارنتي آذن بيت كيس ديل كيس ماشي وكل عيني واحد كل ديل كمان يعجرن أنت محاك الفاصلة يا صاحبه والله صاحبك وبارست والله وضع لكن ماشي نترك شكل بيان الله ميلا مفروض يدير جريمه لكن إلهي سبحانه وتعالى لكن بارست واسع طبعا أتكلم عن البار برنا سركيشي دولد لو على ماشي تكني هل سوى غفر بماشي سه يا ماشي أنا أصحابتي ندنا دقن مركا وعن سمينا هذا ماشي نترك شكل دواتين حلبانا وزيرة إهل سراكيش بوليس نترك كل وعليين أنت رترع بيلا الله سماه زايد الله دبقله مركا وسوجيين طليان وسوجيدي ولا بارا إلا الله يحقيجي إن شاء الله ما لك هرب ماشي سي كاميرون سو ملا صحيو سو وضو ماشي سي كاميرون سكول بوليسي وسو مالها سي كاميرون أنا وحوي ماشي سكول بوليسي ما هرتوا برهاد الصومالي فروت أكتيري لانتي أو دقنا حمر جب ماشي كنت على أكتيري واي لانت عشورة كسور جيت كيسوا ماشي شيء مايا سمان فروت لانت دكتير بكسور جيت صومالي فروت برهادنا ترى من كويا لانو هلاك ماشي سي كاميرا كنت دور حبا كنت شير الحراس شير كؤات كذا بركات كرات قرع كل عجري قرع ما كنا عطواتي سي كاميرا سو سار جري مايا تا ماشي ما هنهي برهادنا كجودبي هاي برهادنا مركز جودبي تلاوة اسمها الأحمر مركا ماشي مال أنا قولي جل اللي عليها كويا لا يا بوله أنا بدقيه ماشي هاي جرال بوله ماشي جنة ده ما دقيه هل سبقي لها يعني ما جرال بوله إلى علامي وصوحيها ماشي ديك كده عندنا حافظ بليه حكتا وكيل ماشي لا هذه سكرون أنت حكتا ماشي والله إني وقحما والله ورق وحوا ولع كلوا ماشي سو كله ديل كده عاي وحوينه لكن كل ديل كان لكن قبريدان هذا فيري قبريدان يا رنتان wax iska qosay inay aadan waxaan ogaa inuu dadka diidan yahay ka soo horjeedo arintan dhowr saraakiil uu shiriyay arintaas marka saaxiibo wax isku qosay isku xir karamiin aslaa ما aadan arintaas ma gelin ana ka ogsahay ana qof iga sukray maanta qaraabo ahaan hadda la weydii karo ma jirin aadan nin zaciim arintaas inuu isku jiray ana og ما معناها سيجا ودي الدنادي سيجا بلوسكا لوكاس بلوسكا ودفاعي مركا أرنتاس أي سوقارت مركا ويا فيري أجاكس ماشي على لو بحش يفهم سي تاس حبه ولو أن كلمة أنا فيرسن لك أجاكس ويلكي سو أركاي والله أبيها على قبر كلا بحي أرنت سعد تفتح من دفاعي صاحبه والله يقول بالله تلا أحمد وأنا بين كل شيء ما وحي إلهي اللوجي أن كل شيء موقت أنا أجاكس ويلكي سو رست هاي reer bandhabow dhaqan waxay leeyihiin qabuuro gaaray leeyihiin lagu duwo marka shalay qabuure arki waayeen maanta ma arkayaan shalay aan ku dhamay dhegeyso reer bandhabow qabuuro gaaray leeyihiin marka horeba aabbahay inta lagu duwo waxaa nagula taliya uu yidhi shaqaalaha dowladda oo asxaabta la ahaa maadaama ay rabeen inay aaskiis ka qayb galaan ani mar horaa ahaydna bixiyo dhowr jeer ani walaashay go'aansanay walaashaya madax adeegtay dhacday oo trimeelaas ma aadi kare meeshaan ugu tagay iga dhaaf meeshaan inta ugu tagi karna inta ugu tagayna qabiis kasta tagi jireen meesha waa gartay garaad anoo shaqo soo asaga wiilka shaqaalaha dowladda ka mid yahay inaa jakis oogay wala socda shaqaalaha dowladda ka mid yahay anoo shaqo soo eelboorka arkay meesha dirbi laga dhisay walaashayna qamiistii marka imaataa la meesha joog awal wala iska geli jiray ay caday ahayd mo هذا ولا جوجو من مقلا يا الله أوكي نكاس وقبل يا الله أنت وصلت قبرك
ويتكتي قبري دنتيدي كسو قلتي وصوب علي مركز والك ويرتي ترمشي ما انتو أكتر دربي الجوري جينا لقي وقالوا ماشي أبوهم كجري كري عم بحين قبورين عندي marka ogolaanshaha aragti waxa marka ay qorshe lahaayeen way adleeda marka anigu dhaqankaas weliga ma maqal qof qabri inta la gado qabriga laga soo bixina waa wax Soomaaliyeed ku cusub laakiin sartaas la dhisay ma booliska dhisay arintaas iga xaqiiq saxo ma hubta akademi sarta asheeg dhismaha hadda qabriyada meesheedu dhismaha la wareejiyo hadda sheegayso ha dhisay ma hadda والله بيساق ولا جنجالة بصراحة بدل إنك جلاي ولا نين لوجي اللي جلاي والله بارا دتكو أفسحين وقصود بالك لكن وين لا بارا مركي جلاي بوست سالي يا مرك بوست ملعون بوري هيا بوست سنة ولا سنة دربي لا بيجي بنا على مرسي دربي ما أنا بوست سنة واي أوكي رواد ما توك سوق وانا إن شاء الله إيه باشا اللي يكون لبنا والله يا أنت سوق هاي ماشي أي تغنات عد فتح وحواي ورأسك أنا بأسق لفتيسة وحاولت سكست النقطة واستدفاعي وأنا هذا اللي إن شاء الله وحي كبح وكبحين لكن مرة غير كل دواء قفت بينك وحاك أفكر لكن وحاول مركز كدي وارك أنا ورأسك هاينو لكن ضد وشكستاهن مرة أنا مجبور جلين مرة ساسا مرة كنت من مرة يلكس أمس عننا إن شاء الله وحنا قدرها مرة صابت أنا صابت قبريدان شكدوا يستبدل الشيء أنا وهو ور بستوس كجروا وركز إلى هذه جماعة عصا أكيدونا لكن بلان دقيسنو ما مدان أيدو كهاليس باركي واكلا جو أودنه واكلا جو لقاه واكجريه وهايا مسكح ده يدوم بفرد ما جوكتو وحواي ويل برجع جرب كإقامنا يو قبرك حتى إقلب بحنا يجوج ويل شيء ده قبري يقول مادن ماما soo dhawow qabuuraha iskool buluusiya maanta duruufta ku keentay maxay tahay duruufta ay keentay qabriyada iskool buluusi waxa iigu duugan 5 qofood oo ayeeyele oo iyo afaraan dhalay ma garatay oo ay ko dawladda u shaqeynayo laamiyada taagan xabad lagu dhuftay ilmahoodii oo sibyaan ahaan haaya nin igu taageera ma lahan adeer ma lahan awlaadaydu waa dhamaatay wiilishi waa dhamaadeen gabdhii midii karti lahayd waa dhamaatay berigana waxa la dhowhayaa adduunyadii dhameed waa lahaaqa madaxweynaha iyo dawladda iyo dalka iyo dibadaba waxaan ka codsanaa ummadda meesha noogu duugan inay noo nabadgeliyaan oo nolol kaga leexdo oo adduunyada lahaaqayo ganacsatada iyo waxa daran ay haaqayaan ay naga qabtaan maxaa dareen inta laga dareentona xanuunay markaad maqasheen qabruurii la faagay baarkaygu waa kala go'a wadnuhu waa kala go'ay lugaha waa ka jareeyo haaya maskaxdaydu ma fadhido ma joogto waxa waaye wiil berga garabka i qabanayo qabriga xataa igala bixinayo ma ii joogo wiilashayda qabriyay u dhamaadeen dawladday u dhamaadeen nin walba soo meel taaganaa lagu dilay berigana waxaan hayaa ilmahoodii oo sibyaanyo ah oo waxba garanin oo nin 5 leh 7 jir u weyn nin oo 3 leh waxa uu weyn 8 jir ana rafaadsan ana silicsan umada dhamaa og cirka iyo dhulka waxaan ka codsanayaa iyo dawladda iyo dalka iyo dibadda inay qabriyadooda awlaadaas ay muslimka dhinacyadayda ay anigaba ay noo dhaafaan wallahi waa arrin mugal waa iyo dadka saas dhulkooda ka saas dhisanay ma aaminsan in gurigaas dhisaan ay ku haydoonaan adduunyase xagee rabaa dhigo nooseen rabaa inuu noolaadaan guri saas aad adigu ku dhisatay ma ku noolaan kartaa hadda aniga arrintan horta ka xumaha waaye kolleetaba dhulka aan gudmin waxa kamid ah dhulka booliisku leeyahay dhulka wasaaradda caafimaadku leedahay dhulka wasaaradda waxbarashadu leedahay dhulka manshiibidu leedahay afartaas dhulba ma iibsadaan laakiin ayaan daro waxaa ah in maanta dadka saas ahaa dad qaarkood ay u maleeyaan in dhulka dawladdu u iibsan karo war markaa daar dheer ka dhisto dabaq ka dhisto anaa biri madaxweyne noqona waa kaa jibin anaa kuu sheega waana ku xiray tuugaataa tuug halo salaamu calaykum brother soo dhow Soomaali wadan TV walaalkay waa ku dhowahay waa maasanta fursadda aad siisay ee maaragtay ilaahay dukuusana fikradayda ka soo gudbisto arinkaaneeto disaster ka ah
ee maanta toole qabuuraha dib loogu dhacay oo ilaahay duu kuu samaroon yahay dadka masaakiinta ah ee ilaahay duu kuu samaroon yahay iishay tabarta yar ee maanta toole ilaahay duu kuu samaroon birmageydada oo maaragtay iishay dadkoodii ay hore u duugteen maantana inay maaragtay calowyowgii ay dib oo la soo baxaan ma garatay arrinkaasee horta hore arrinkaa horta hore waa arrin aada looga xun yahay arrin aad iyo aad looga xun yahay wey marka niyahow meeshaan waxaan rabaa inaan maaragtay ilaahay duu kuu samaroon laba arrin aan u gudbiyo halkaan intaan u mariyo mudane xasan sheekh maxamuud ma garatay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya marka niyahow arrinka koowaad xasan sheekh maxamuud waxa uu haddeertaan faylgaraynayaa ilaahay duu kuu samaroon yahay macnaha mas-uuliyaddii uu u qaaday shacabka tabarta yar ee ilaahay duu kuu samaroon yahay in hoos loo fiiriyo la rabay maanta toole macnaha ilaahay duu kuu samaroon yahay arrinka lagula dhaqmayo inuu indhaha ka xirto taasee hortore waxay keenaysaa mas-uuliyad xumay keenaysaa ma garata macnaha ilaahay duu kuu samaroon yahay annaga waa la soconnaa xilka siduu loo kala sareeyo iyo sida loo kala hooseeyo iyo nin walbaba meeshuu wax ka raadinaya waa la soconnaa maanta waxa ka jira dowladda federaalka ma garata aniga horta hore kuma hadda waxaaneeto dhulkaaneeto kuma eedeynaya aniga xasan sheekh maxamuud kuma eedeynaya ra-iisul wasaaraha labadooda inay baahi ay u qabaan ay u beysayeen dhulkaaseeto u baahan yihiin kuma eedeynaya aniga ma garata balse waa la ogyahay meeshaaneeto dadka ka qaraabanayo oo raba inay maanta toole iskuul blizio inay ka dhistaan dhulkaaseeta ay u baahan yihiin inay hanti ka sameeyaan waa dad hoose iyo dad shacab ah oo u baahan inay isticmaalaan ilaahay duu kuu samaroon yahay wasiirkooda iyo baarlamaanka ninka ugu jiro iyo ilaahay duu kuu samaroon yahay ninka ciidanka ugu jiro inay isticmaalaan si ay ilaahay duu kuu samaroon inta u musuqmaasuqaan dhulkaaseetana ay u qaataan u baahan yihiin inay jiraan baan ogahay ma garan marka meeshaaneeto waxaa weye meeshii laga rabo weye xasan sheekh maxamuud inuu wax ka qabto meeshii laga raba weeye ilaahay duu kuu samaroon yahay yaahidaan ordayso oo ilaahay duu kuu samaroon yahay dadka dhulkooda kula dhegan oo ilaahay duu kuu samaroon yahay ii sheeg oo rabaan maanta toole dhulkii xataa danta guuda inay maaragtay boobaan xasan sheekh maxamuud indhaha uu ka xiranayo asagay barmadow ku noqonaysaa halkayga maqlaysaa asagay barmadow ku noqonaysaa ilaahay duu kuu samaroon ii sheeg asagaana lagala xisaabtami doonaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim ma garata maalinkaaseta asagaa lagala xisaabtami doonaa because haddii uu dhaho anigu ma sameyn adigu ma sameyn laakiin ilaahay duu kuu samaroon sheeg under you control aa lagu samaynayaa macnaha ilaahay duu kuu samaroon ii sheeg madaxa kursiga ugu sareeya maanta adigaa saar macnaha waxay tiraahda ilahay duu ninka yiri wuxuu yidhahdee ha aabbo aniga igama maaragtay dhagayarid buu yidhi ma garata waxaa maqlaysa ma garata ninka wiilkiisa lagu xamanayo oo yidhahda wiilkaasaa dhalaa marka dambana isku qabsadeen ilaahay duu kuu sare ceelka ma garata marka ninka odayga ah ee madaxweynaha ah ilaahay duu kuu samaroon yahay maskiinnimadaneeto maskiinnimo leeraa ma jiraan xasan sheekh dhegeyso xasan wuxuu ugu talagalay dalkan inuusan dan ka lahayn xasan dalkan waxaba yaraatay raja uu ka leeyana malaha ummad inay wanaagsanaatana rabta ma jirto dal inuu hore u kacana raban ma jiro waad og tahay oo dastuur aan laisku raacsanin buu dalkan ka hirgeliyey asagoo ujeedkiisu qaaquul siyaasadeed inuu 2 sano ugu darsado ama kad badan buu ugu darsado xoog ku sii joogo dalkiina waa la booba ku socdo tan haba la boobo waxba ka haraayay adigu ma isweydiisay mase isku qancisay dhulkan waa dhul inta la boobo la dhisaa birri hadaan rabo aniga axmed markaa madaxweyne noqdaan dumina markaasaa shaqadii ma fahamta aan dumina hadaan rabo ama caruurta agoonta booliiska siina maadaama dhul booliis uu yahay gadmaynin dib uguma hayso laakiin calanka qarinta Soomaaliya oo gobolka haaf ka maqan yahay ayaa lagu soo dhaweeyay markaasuu ku qosol iyo farxad ka qaaday madaxweyne nimada aan anigu u ixtiraamaan ii sheegi kartaa qof saasase wadan aaminadan ku aamina soo qalad taariikhiga dadka Soomaaliya galan ma masal loo baahan yahay in wax laga qabto aan runta soo sheegnay waniyo horta wixii siyaasadda oo ilaahay duu kuu samaroon yahay maanta toole uu asaga uu damacsan yahay qaabka uu maaragtay siyaasadda u yaqaan inuu dalka ku maamulo balse waxa reality-ga ay jirto maanta toole ilaahay duu kuu samaroon ilmiskama tiraanka ah ay siyaasiyiinteena oo dhan ay ku wada dhaqmayaan ma garan xasan sheekh maxamuud macnaha ilaahay duu kuu samaroon siyaasadda uu isticmaalaya waa siyaasadda maanta toole 2024 ee ka daaran Soomaaliya waa ilaa iraas Kamboni ilaa iraas Caseer ma garan ilaahay duu kuu samaroon yahay
معناها ميل كاست والحد تعليق فيري لفت جرين بقى لغا سو قيلينيا قورقور بقى لغا سو قيلينيا الى دكوس حسن شيخ محمود نيكل دايا شيخ دني بقى لغا سو قيلينيا الى دكوس رشيد عدل علي ميل هورتو سياسيين الصوماليدا هذا كسر جومر تاغنا برتاس تاغنا ولالو ما la dhihi karaa marka Soomaaliya hoggaan liita ayaa mar walba meel walba oo dalka kamid ah hoggaan u ah hoggaan xumaana dalka baabi'isay ee dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta wadayna hoggaamiyaasha markaas jooga dheh madaxda markaas noo joogta hadda noo hoggaamisa ayaa waxay yihiin dadaan biiga yes that's right aad iyo aad u maasantahay brother guulayso waa kaaga mahadcelinaa كقب جلاش كلام سينا وقت سينا الله كعزي صاحب سيد أركتها عافمات كلا سوق الله عز الله عز ما شاء الله بالرباط يمرسد هذا العط إنه يحرق المدينة أيام مشان كبحي عط كاسي لبقفه سرق كيلو ولا شيء سنة عط يكوذ كفت معه كوذ شيكستان أو يكوحن تمام أيوها وكرا لجريننا استوديو فراء أنا جرا استوديو فراء ما مرينين عاد فتح عرفتي إنه استوديو فريا مرك عط يا كبحي أو أنا وقلت رجل إني صحافة مغش معناه إذا عيتها لبنا وصاحبها هذا ليس ودير سنين مرك هلاك على الموضوع يا حول الله قادر هلا السلام عليكم أحمد السلام عليكم صاحب كسورو سوال ودني تعب ما قاعد ذلك جوت عبد آل إسحاق وحجو إيرلين عبدي آل برنامج فلسفة ولا صعود هذا رجسنا نك هذا وريسرسي نوضة كل حالة هي ونوضة كل حالة إنه لموعه وقرت برنامج كروك المرك horta ilaahay baan aad horta ma santahay saud dadaalisa laakiin waxa ka dhageysana mara nin xalaal ah إيكادي تلفون كل جواب إيكادي عبد المهد برنامج كم كجرنا تي في لايف أنا كجرنا مركز رالي هاو سقل دنا المرجل أنا المرجل أنا اللي هاي رص عمرك صاحب الله ما وعادي واحد الله اسمه انا كمودي واحد لا توقف تقسم انا اسمه موقت هذيك ما توقف تغنيك الواي رص برنامج الله برنامج احمد horta waa maasantahay macnaha horta markii adiga aad saarka u dadaalayso qofkii raba inuu hormariyo oo xalaal ah uu ku mahadiso moogid laakiin qofkii waxa ay ku mahadinayso moogid sax waa oo waayo waxaad jooji leedahay marka walaalow fiir waxaan la yaabay marka nin baad wuxuu ku leeyahay xasan iyo xamse warka baayaan waxaan xasan iyo xamse waxa loo dhigay boogti iyo dokumentiga adduunka ay la mid tahay waxa la mid tahay adoo yiraahdo markan gashana warka ma hay marka dhageyso wixii Soomaali loo dhiibay oo qoryaha ridaayay oo nafta dadka ku dhibay oo laga joog waayo oo dawladda laga waayo xasan ma hayn haduu madaxweyne noqday ma alla markuu xasan madaxweyne noqdo maxaa ka bedelay oo madaxweyne maxaa boog keenay ما كبدل شيخ سريف ما كبدل فرماج ما كبدل عبد القاسم ما كبدل علي ما كبدل نينك اللي يرادو نينك اللي يراد ايش عبد الله يوسف نين كان صومالي مركو غوليستو ما ناغو اويان ما قبورها لو قتا ما ددكو كلا عرايشك ادن كويدي ما صومالي ماشي او كانت كان dadka keensaso dad keensay wuxuu tala galeen dalka inay ku boobaan أنا معنا كلام يلي كلام. ما أنا ما هرت فيلم مقعد هرت هذا أحمد وهذا وحكوش شيء هذا مقعد مسماسق واحد كور يا متقنا مسماسق وعرور مسماسق أبي متقنا. مسماسق أبي وحوي نين كان وين أو توجا مركل الدورته هدو دورته ضد حلال هذا أو حلال هيو أو إله كبقى هيو أسوأ وهم عنكره مركو أسنية توج عدي استي wuxuu dooranayaa tuuga kale si maana wax loo boobo in aan loogu naxin soo moogid hada fiiri nin kasta oo la waco labarka qabanayo wuxuu ogyahay inuu tuug yahay kow ninkaan qofka markuu baahan yahay oo la yiraaco wuxuu cunuu la yahay haduu rabo ha hado
oo markuu xogaha hela haddana ha aamuso xasan badda badmadowda haddii lacagta caawa haysa waa ka badan tahay lacagta ay haystaan maraykan iyo ingiriis way ka badan tahay saasay tahay wax kas hadduu arko kun meel taal waxaad awraha waayo maxaa xalow aan sameynaa marka ma sheegi kartaa marka waxayna baan kuu sheegi marka ninba wuxuu ku leeyahay hadda kii waa maqlaya marka dhegeysanaysa cabdifataax meesha intakas laga bixinayay waxa kulmiye mataqaanaa aeroboortka ageedada baa la kicinaya kaarama maanta laisku leynaya xasan maanta waxaa la gaaray waxa maanta 91 xamar ka taagan madaxooda allah ka soo xildhibaanadii doortay nin rag badan oo xalaal ah jooga waxaa jooga xasan cali khayre waxaa jooga sheekh shariif labada sano inay gaarsiiyaan ma ogiyo wallaahi billaahi tallahi hadduu xasan laba sano sii joogo inaan qof nool la arkayn iyo dal nool midna waxaa ma ogida dalka waxaa ka daran inta badda ku jira maraakiib inta hawada la gadanayo inta waa ninka arkay safaaradii soo gatay tanzania soo gatay marka dhegayso war baan ku hayaa warka waxaad oga qanci kartaa adigoo walaalkay ah ninkaanu soomaaliya in lagu qaato inuu manaxa yahay inuu sixishoonin waa ninka carruurtiisii naagtiisii wiilkiisii sodohdii filadii soomaaliya looga talinaya ku aruuriyey oo cid soo gelaysa aan la arka waran okay meesha waxaa yaallaan kuu sheegay xildhibaanadii uu dastuurka ku meelmarsadaa haysto waxay dhaheen annagu waan ka soo noqonaynaa mise annagana si ayagana waa manaxayaal waa artay carruurta abrigiir si loo leenayo waa artay kaaraha si loo leenayo waa artay airbork si loogu ordahayo waa artay si loogu ordahayo meesha xabaalaha nin baad wuxuu ku leeyahay waxaa loo dhisayaa walla maxaa loo dhisay awal wariga farmaajo wuu joogo xere boolis muxuu dhis waaye sheekh sariif muxuu dhis waaye xasan markuu imaado 600 oo boos baa waagi hore 2011kii 2002 yaa cagta la mariyay waa asaga xasan waxa asaga dhulka ku diray inuu nasab dhimayaan kuu sheegay baabuurta ka shaqaysa magaalada airborka waa baabuurtiisa ma dadku ka baahi badan ma meel gaar oo ka yimid kow maxaa naagiisa dhex dhigay dowladaha farmaajo ma joogo sheekh sariif ma yaqaano naagaha xasan waxaa yaqaanaanke gaalada caddaanka yaqaano sababtay tahay meel kastay taagan yihiin asagoo taagan bay salaamayaan ka war ma garanaysaa caddaanka kama qabanayo dib moog inay tahay marka ninkaan walaalow qabiil qabta ma lahan dowlad soomaaliyeed ma hayo xildhibaan maamul goboleedii waa kala carareen ma raba inuu soomaaliya hore u wado waa nin tuuga oo weyn tuugana wato ma garata waayahay marka haddii alla saas na baday maxaa annaga naga waajiban qaban karnaa marka ma sheegi kartaa hadda fiiri waxaan ku yidhi ilaahay baa kugu dhaarshay ninkii aabi inta ka samray duugay kafanay ka samray naga guursaday caloosha xirtay haddii mar labaa la yidhahda qabrigaas soo fuji waa kan aabaha waa kanaa meel geed waayo fiiri hadda cabdifitaax wuxuu yidhi waa maqlaysay qabriyada ajakis asaa la baxaay dhaqankaasi le laakiin hooyadan abgaal waaye dhaqan bay qabriyada meela baxaan dadkuna ayaguna 6 qof aa la bax la yidhi raamus wasaalaysaa soo ku wiilkana ma subax hore lahaa waxaana la yidhi meeshaan qof walba hala baxa qofkiisa maalinta oo haddana markay garaaceen uu lahaa waa maasan tahay aad iyo aad maasan tahay waa maasan tahay waqti daqiiqad baran kugu diray waa maasan tahay guulaysa saaxib aad iyo aad maasan tahay markaana qaybgalaha kale insha allah runtii waa ku soo celinaa barbaad war yar oo baxayaa jira oo nin saaxiibkeeya oo wada sheekaysano wada kaftano inuu hadal yar ka bax hadalkaasi hadal bir loogu talagalay media maaha waa hadal aniga asiga is dhehayna marka hadalkaasi ma aha hadal aanu asiga aniga ku wada sheekaysano waay hadal loo qabanaa maaha marka mas-uulku marka hadda wareysanay cabdifitaax waxa uu ka hadlay waxyaabihii dhulka iyo booskan ka hadalnay laakiin qadiid kale kama hadal qadiida wixii kaloo meesha ka baxay waa wax birbaati labadiina wada hadleen raalla hadal oo kaftara waa ka socona suldaan haye suldaan kusoo dhawo Soomaali wadani TV saaca markii hore adoo maas aad iyo aad Axmed waa ku salaamaday asxaabta dhageysanaysa Axmedow Soomaalidu horta hadal ma dhamayso go'aanna ma gaadho waxna ma bedeli karto arrintu waa dhageysanay program shacbi oo socday horta Axmedow dalku badbaado u baahan yahay dalka maanta meesha uu ku jiro حتى 1991 dagaalkii sokay meeshu maanta gaadhay ma gaadhin xaalad waayo 1991 Soomaaliya ayada istilaysay ayada u heshiinaysay ayada qabaayl iska ahayd laakiin dalku maanta sida uu ku socdo labada sare xasan sheekh soo socda hadii uu soo joogo waxaad arki doontaa dalka oo quwado kale shay isku dileen waa gartay dalka waxa la wixii hanti uu lahaa horta waa la xaraasay intii hore 4 sano xasan sheekh xaraasay ayadoo aan ognahay inta dhimanna hadda ayuu rabeen oo xaraaso badii wuu xaraasay cirkii wuu xaraasay safaaradii Tanzania meel kasta wuu xaraasay
حسن الشيخ قرته ومدة صباري ما تقان أنا لك ما توشيقية حسن الشيخ نندر جماعة إن الدنيا كدر جماعة دريمي كراه أفرت سنة هوري أفرت أنا ودريمي كراه وحوضه maamul iyo dawladnimo iyo Soomaaliya qaran Soomaaliyeed inuu dhisno diyaar waa wadaawanayay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee militariga Soomaaliya ku ruday oo ayagoo gaawata sita oo bacmadow cunto ku rita qabo ayaa irbo rag u dhufay wadaadkiis ku yeeshay xasan khayr sharafta ilaahay gobol wadaawanayay taas uu ku maraya hay'ad salaata ma jirto wasaaradda shaqada ma jirto agaasimo shaqay ma jiro wasiir shaqay ma jiro maamul gobolada mar hore tagay ayagu mar hore iska tashteen oo ayagu farahooda ka baxeen حسن هذا ماشي كلي وكنا دقائق يشوفته بقالة مقدشوي مقدشنا الشعب كريم واحد ترين كأي هيان واحد كسوير ودري بكرتان واقرت ان أنا سؤال السنة كوا غير حسن وسؤال ده واحد بدل كرماء وايو ماذا كلا أدوك الشعب كأي واحد بدله أو واحد جديدة وإنك الليدرشيب كأدو بول ليدرشيب نقضه نين مثلا الدنيسو كوربشن أدو نقضه أيجا إسكارية لكن سؤال ما دام قبيل كواحد بكتش عليين ده واحد بدل كروي حري كرماء حتى شيخ انت قال لنا ضد باك علين او نحب كوهين او واحد كسو سميريا قلد ku faraasanayo marka hadaba waxa weeye niyo dalka horta meel adag buu maraya xaalad adag gudaha iyo dibad iyo meel walba ninkan hadda meesha kaliya ku dhaqdhaqaaqaya waa bataqana waa inta yartay Muqdisho waa dareemi kartaa maamulkii iyo siisukii dawladnimadi asaga bas ka shaqeeya asaga wasiira asaga agaasima meel walba asaga ordaya asaga jooga aan kale ku diray Axmedow ان كان هذا والله سعوت عسومات ايا laga helay dowladda federaalka ay ka heshay oo malaha reer wasaaruhu aadayo qorshayaasha lagu yeeray oo ugu badan lagu yeeray waqaadkii miirowga in la sii socodsiiyo heshiiskiisa dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo qaadka ku hayo iyo mushkiladaha iyo dhaqaale xumada iyo cagabarka lama eegayo Kenya ayaa mar rabad loo soo saxiixaya in qaadkeeda ka tuula ka gobol cidka loo la jibaaro حسن الشيخ مركز إلى ذلك كان يتذكر قف بسهولة كنقول كرما وبول ليدرشيب وقف دنيستا وقف أسقط في أمر كيسي أنت سكلي أنول وقف بدو الصومالية أنا ملي جالسين دور إن شاء الله صافي لي. مركا دان إسكت على إنه حوق ترميسي مثل هذا حالك لو وقفك راجري كرم مثل هذا. ما تشيرو رنت أنا سوشك أحمد ما تشيرو بربانكو وكون كل واسكفر سرنا مركا. ما شفت الشعب كله ما بدل كران وشعبك وقبائل وهذا عاو كاش ضد انت رالك كاين ادي احمد واحد شيء رالك كاين بارلمان كروان شركاتو شركيسا كنول oo wixii la siimoyo wax kale aan dadka lahayn marka waxa weeye dalka Soomaaliyeed labada sano soo socota kulli xaaladu way ka sii dari doontaa meel xun oo cagabarka la gaari doona saafilayo hadaan ilaahay farajkeen ay waa ma santaay aad iyo aad ma santaay horta waa kaaga maxay waqtiga qaalina la qaatay aadan kaaga maxay saaxiib ما شاء الله بل مركان كله أنكون نقول هويدا أنا دريم حنون قاري تابسيس باركيgu waa kala go'a wadnuhu waa kala go'ay lugaha waa ka jareeyo haya maskaxdaydu ma fadhido ma joogto waxa waaye wiil beriga garabka i qabanayo qabriga xataa igala bixinayo ma ii joogo wiilashayda qabriyay u dhamaadeen maama soo dhawow qabuuraha iskool buluusiya maanta duruufta ku keentay maxay tahay duruufta ay keentay qabriyada iskool buluusi waxa iigu duugan 5 qofood oo ayeeyele oo iyo 4 dhalay ma garatay oo ay ko dawladda u shaqeynayo laamiyada taagan xabad lagu dhuftay ilmahoodii oo sibyaanyahan haya nin igu taageera ma lahan adeer ma lahan awlaadaydu waa dhamaatay wiilishi waa dhamaadeen gabdhii midii karti lahayd waa dhamaatay berigana waxa la dhowhayaa adduunyadii dhameed waa la haaqa madaxweynaha iyo dawladda iyo dalka iyo dibadda waxaan ka codsanaa ummadda meesha noogu duugan inay noo nabadgeliyaan oo nolol kaga leexdo oo adduunyada la haaqayo ganacsatada iyo waxa daran ay haaqayaan ay naga qabtaan waatahay maxaa inta dareen inta laga dareentona xanuunay markaad maqasheen qabruurii la faagay baarkaygu waa kala go'a wadnuhu waa kala go'ay lugaha waa ka jareeyo haya maskaxdaydu ma fadhido ma joogto waxa waaye wiil beriga garabka i qabanayo qabriga xataa igala bixinayo ma ii joogo wiilashayda qabriyay u dhamaadeen dawladday u dhamaadeen nin walba soo meel taaganaa lagu dilay berigana waxaan hayaa ilmahoodii oo sibyaanyo ah oo waxba garanin oo nin 5 leh 7 jir u weyn nin oo 3 leh waxa u weyn 8 jir أنا رفاتسن أنا سلعسن مدة دماء
cirka iyo dhulka waxaan ka codsanayaa iyo dawladda iyo dalka iyo dibadda inay qabriyadooda owlaadaas ay muslimka dhinacyadayda ay anigaba ay noo dhaafaan baaqa maamadaas ee dirtay waa baaq cajiiba laakiin ninka maanta ilmo ku hoysa raba ninka maanta degi raba ninka maanta nacfi ka raba waxaan maleynaa inuu naar raadsi doono qabriyadaas waxaa waaye haba dhisto hadduu doone laakiin waxaa ficneedba hataa almiino meelaan qabriga ku oolin inuu iska aado maxaa qabriyadan daba dhigay maxaa dhulbo daba dhigay maxaa daba dhigay mar walba inuu boob hantiya daba dhigay ilaahay magac xumo iyo magac nagama dilo ilaahay muunadeeda ma xumeeyo war waxaa kan waxaan xishoonin war waxaan la yaabanahay oo la yaabanahay war waddanku ayaan darrada ku dhacday waxaa waa qof aanan u qalmin madaxtinimo u dembiile ah inta ka dhintay oo wuxuu inta marshi keliya raba oo wallaahi waa yeydii maxamed sabar uu sheegi jira hadda aan haysto maxaa waa feeri war bulshadaan adeeg kuma haysto oo biyo ma haysto oo koronto ma haysto oo wax walba adinkaa qaateen adeeg kastoo bulshadeed oo dalku loogu adeegi lahay xataa gacantiina ku jira dowladnimo iskaba dhaafa dowladda wax qabatee dhinteereed oo bulshada iska lahayd maalin walba waxaad ku ordaysiin qaxooti meel ku jira aad maya ma lehe qabriyadaana meeshaana diyaarsan kaala inta kale war dhulki ilaahay ciriri allen ku abuur maxay tahay ciririgaad raadinaysiin daarahan aad dhisaysiin hantida aad boobteena meelaad ku dhisteen raadinaysiin war ilaahay ka cabsada war adduunyada waxba qiima ma samaynayse ummaddan boob ka dhaaf xasan sheekow adiga xamso waxaad hurayninoo waaye adiga unbay dushiina saarantaa cid kasto yaan wax adiga iyo xamsa ayaa mas-uuliyaddas qaadanaya weliba adigu aad ku ka noqotay xamsa waa nin diin ka muuqato yah walow diinta uu ka muuqataan haddii aan soo xasuusto doorashadii kismaayo si wax loogu doorto haddii aan soo xasuusto waleele culumaad tahay dhihi maayo diinaad taqaanaa ku tagrafashaana dhihi maayo ninkii ahay saddexaa soo xulana midna hala doorto barnaamijkaas waddanka keenay soo maaha walla inaad wax wanaagsan kaa sugeen habeen waxaan arkayaa soo leh dadkan doorasho cod iyo ma dhacayso doorasho codaa dhacay horme baabeens dadkan registration rabaa wuxuu rabaa kow diiwaangelin rabaa wuxuu rabaa kadib maarata ii sheeg maxaan ku yidhaha diiwaangelintii xataa may hal xaafadoo magaalada muqdisho ka mid xataa diiwaangelin ka maysid maxaa marka dadkase waxaa la rabaa dhulka aad xoraysay oo xoraysan oo dowladdu ka taliso boqolkiiba 5 hadduu doono diiwaangelina ka samayso diiwaangelintu 2 sano ka hor in dhacdo waa qof walba aqoonsiga la siiyo aqoonsi doorashada haddana la siiyo kadib doorasho codii qofar yiraahdo laakiin anaga casharkan u dhigayso waxaa qaaquul siyaasadeed abuur qaaquul siyaasadeed ku mudug inta la jijiidaayo afartan sano ha dhamaato 2 sano haddana jijiida dhegayso waa dalkan qaaquula u rabtay wax kale uma rabtiin laakiin dhici mayso ilaa idinkiisa waxaa adinkaas si sahlan nooga tegi doonaba meel kale masiibanka allah kaga keeno ummadda iyadoo dhibaato ku dhicin maxaa wacay waxaaba tiinba shar aad tihin hay qabriyadii iskaba dhaaf dadkii qaxootiga iska dhaaf waxaad dhaafteen male qabri qaxooti qaad wax kastoo qurnoo dhan ba adinka gacanta kugu jira wax kastoo qurna adinku gacanta kugu jira qiimo la-i qaali wax kastoo qaaliyooba wax kasta waa qaaliyoobeen wax kasta waa qaaliyoobeen wax kasta qiimo maarata qiimahooda kor u kaceen waatana dekadii wixii laga soo dejinaya canshuur extra haddii aad fiiriso diyaaradii canshuur extra haddii aad fiiriso dhulkii warniyaho xaggaa u socoteen xasan sheekow maadan ka cabsanin inaad meel lagugu duugan la waayo miyaadan ka cabsanin in korkaada gogo miyaadan ka cabsanin in maarata ii sheeg masiibo ilaahay cirkaaga soo rido war dalkan ummaddan dhib ka dhaaf boobka iyo hantidan waddanka aad ku hayso ka jooji kooxdan maxaysatada oo qowlaysatada dhulkii loo soo dirna waxaa loogu soo diray waxay tahay waa kooxdii adiga aad la gashay dhiilka aad la gasho tiri nin walba dhulaan siinaa nin walba hantiyaan siinaa si amaarta anu aan baarlamaankii tooshay u daarina waxaa waaye wax kale maane waa dhul siyaasad loo bixina wa oo la siyaasadeyna wa oo la rabo in dad lagu sameeyo war ummad yahay masiibo waaye ninkaane masiibadan ummadda allah ka baxsho rabbiga qaadirka ahayna ka baryana dhibaatadan dalkan oo ku hayo waxaa waaye runtii waxaa wax loo dul qaadan kara maa dalkan in laga baasho loo baahan meel kasta dhibaato ka taagantahay war haddaad rabto dhul miranaayo fadhiyaayo dhul dawle ah oo aan miranaayo xerada miranaayo oo aan hadda noqon karin meesha hadda ay ku taalo xerada miranaayo ma noqon kartee muusa degana ka baxso muuse ee qaada iyada aan dhaafan dhibina ayada muuse maarata sarta miranaayo
dhulka boliiska ma gadno sharcigu ku leeyahay baro sharciga ma taqaanay dhulka boliiska dhulka manshiibiyada dhulka wasaaradda caafimaadka iyo dhulka wasaaradda waxbarashada afartaas dhulba hay'adaha le ma gadmaan horta baro adig ma la xaraashi karo ma la geli karo haddii xataa ay ka maarmaan hadday ka maarmaan xataa waxaa waaye shaqaalihii dowladda loo dhisaa oo shaqaalihii wasaaradda waxbarashada ayaa iskuulo ayaa waxaa loogu dhisaa guryo fiiri dhulka boliisku kama maarmo fiiri sideed kama maarmo dhulka maaragtay isha manshiibiyadu ma gadno dhulalka aan gadminay kamid yihiin dhul boliis haddaad taabatana ged maayo kii beri gataa axmed aniga diidiya axmed aa beri madaxweyne noqona markaasaan kantarbil marina ama haddii guud dad dalka dhiga marka waxaan ku sheega kii sameeyena waa soo xirina adiga laftaada soo xir oo aan musuqmaasuq kugu soo eedeena insha allah marka dhulka dowladdu oo weliba afartaas hay'ad aan ku sheega war dhigahaadan fur waa dhulka taxiska lagu qaado canshuuraha municipal local government ee leedahay dowladda hoose leedahay secondly minister of education wasaaradda waxbarashada ma maqlaysaa ma fahanta booliiska soomaaliya somali police force ma maqlaysaa iyo minister of health wasaaradda caafimaadka war afartaas dhulba ma gadmaan dhulka alla kula gooy afartaas dhulba ma gadmaane xagga aqligu kaa jira war xeerka dastuurka dalka fiiri dib u fiiri afarta kaanud bisa aan la gedi karin baahi kastana dadkoodi maba ka maarto haddii uu yahay iskuul oo laga maarmay wasaaradda waxbarashada macallimiintay guriga u dhisaysaa haddii ay oo ah dhulkii laga maarmay oo noqdo dhul boliisku leeyahana waxaa laga dhiga xaaska boliiska ayaa guri loogu dhisaa qalbiga lagaa qaadi haddii ay noqoto in maaragtay isha ay noqoto manshiibiyadu ay ka maarantay waxaa laga dhiga adeeg bulsho oo kale ayaa lagu qabanaa markii manshiibiyadu adeeg bulsho bay haysaaba canshuurta haddii laga maarmay oo ay ahayd meesha awel ahaa jirtay laanta maaragtay laanta laga maarmay kasoo qabo laanta waxaa laga maarmay degmada hoodaa ku tiil oo manshiibiyadu leer haddii laga maarmay oy xarun kale iibsatay laanta booska laanta waxaa laga sameynaa wasaaradda maaragtay isha manshiibiyadu howlo kale adeegeeda lagu qabanaa لا لله انا رجل هلا السلام عليكم waxaan kugu soo noqdaa halka erey wax soo wacay baarkay waxba ku sheegi halo هاكم على هرو قرصان axmeew هاكم على ها waxa halka erey baan ku sheegi oo dib hadaa hilmaamay هيه wasaarad ka hadlayso wasaar xasan cali dheere waad ogeed intuu meel tagayay Puntland galmudug asaga dhisay kismaayo tag meel walba tag waa ninka ogeyd oo madaxweynaha la midka ahaa ra'iisul wasaare xagee jooga ninkan si loo doortay guri ku xiran oo digaag ugu shaa ninkan magac ahaan iska jira maane nin xil haya ma aha xilka madaxweynaha sheekh ra'iisul wasiir asiga wax ka kullu shay asiga taas ma kala tagay maqal wuxuu ku soo baxay waxa qof islaam ah xildhibaan buu ahaa xildhibaan wuxuu ku soo helay rag la laayay oo dhiigooda ku soo baxay saddexii ka mid waa ninkii saddexii ka mid baan kala baxayaa bal wajhi xumadiisa ninka wax ku soo baxay wuxuu rabaa intuu dhex istaago inuu yiraahdo meel kale ma aadayno war waay xala waxa la duqeynay madaxtooyadii miyaan imaan lahayn yaa dad u sheegaysaa ka xun mid kale fiiri bariiski Mareykan uu keeno askarta baan uu keenay nimanka xadayo ka qaban la xagee doorasho ka qaban ما بريسك عدا بريسك اسكلي ماني بريسك حتى مشار كيسي كف قيب كذا العراء مدعينا تبي سويس عشورة لا جرى والبريسك مشار كيس اوتوماتيك دول ده قوستوا waxaan ku yiri ninkan TikTok uu leeyahay soo moogid waa nin xasan iyo asaga waa sam xil ka qaadi karo imaaraadka meesha ku hayo inuu Soomaali duleeyo ciidanka dhamay ciidanka Soomaaliyeed la tababaray hal nin kama joogo soo moogid ilaahay yawm maqane إلهي يوم كان حصل حاله فيها اللي هذا إلهي ما ذاك خبط أكره فيك رمضان فيري أبو فيري أكبر فيري نمك دتك مبالغة دعاء نجاح حقوق حبسية كحرنا هدي بحوار اللي قاعد يكون والله وابك حنيا كاس موبايل وكسمية كانوا ذلك كلام هذا إلهي أنا قبل شيء ذلك أنا يقطع مكعب أبو فيري قف كبركم نرجو أو نحو جور نستوى العجلة أو بابور قطو سأروح نستمعها هسا أنت بوها كوض يعني كان لك غاد كان سعره مرة إلهي بلنك حسن جولي نيك جورس وبون ومدرجبه يحاسه والله أرتنيو وحن وغانيسا ومدة صحيح كده حي هدول مرب أو جديد أمرنا السيجا وحكيلو ليه دبعتين وهيل دونا دوك الجوان امتحان كاس أرك دونا واحد عضوي إلا ويدينا أما إني سأرك دونا ما فهمت ما ولا هويدا إلى كلش هويدا هذا دي سواي
أما هو ولا شيء ده أنا دي لا فيرش وعي كل اسم نجسيس maya waxaa waa ogahay qeyr Allah ku siiyay fiiri nimanka culimada masaajidiyaha jooga iyo awjiis iyo dadkan lafooda la soo bixirayo oo raba in guri lagu dhisto iyo waxa dhacayo maxay aamusan yihiin قيبكين شركة قيبكين waray wacaya malka qaba qofkaas قيبكين دي قيبكين ما أنا واحد قيبكين دي مع رسول ترى قيبكين دور oo ma horta يا ويا ويا تيابن سكامس ويا سكامس وحكوا شيء ما قال waxaan ku yiri hadda farmaajo markuu joogay moog fiiri baabuurta baska ahaa oo inta u dhaxaysa magaalada $8 ah oo isdaamar faraha badnaa waxa ka joojiyay ma jiraan kuwaasaa yaa bas yaa ugu filan wax kasto waay sheekh sariif ma geysan farmaajo لا جري أسمع قبلاش كلام سينا وما ستة سلطان أنا كلام حلنا صاحب يا هلو السلام عليكم هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صاحب مقعد يلك جوت أحمد وعليكم السلام ومقعد عبد الرحمن جوجا صوماليا هذا ورس الموضوع وأنا كله تيفي صومال ودنا تيفي هروقل صاحب هذا ما ست هروقل إله قرقسي هروقل أردت هذا فيك كذا حروته أم محافظة أم معارضة أنا كلته وحن حسن قرار معارض كوه فلك مركا معارض دميد بناك عندك فلا صانو كلام حن قاعد كرما ذلك مرة أرتسد لا مرة كتاب قاعد تقولي مركا ما أنفع كرت ما نفير سكره بل هذيك صومالي حمر نجوجي وحكى هذا وغيركيسو أفيان قبل أفيان كبوليس الصومالي غير أكاديمي بوليس كلا قدسها لو بس جوجي وهالأركي دوره gabadhii hooyadeen waxay tii qabriyada dad kala baxan lama orane dadku iga la baxay ayuu yiri hooyadan waxay leedahay dhowr qof oo anigu ay ku jirto ayadii meesha ku aasan la baxan la yirsan mana la bixi karo marka adiga waxaan ka rabaa bal adiga adaa xamar joogay xaalkan soo yeelan noo sheeg qeyr la kusiyo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وري أحمد وكسلامية إذا عادي تيفي دمان يا هارون وسلامية aad iyo aad mawduuca hadda ugu galo arintan shaqo ka soo cusboonaatay xamar waddanka Soomaaliya horta xukuumadan taariikhda ay joogto waan naqaynay si in dhulka iyo waxyaalahaas aad loogu eedeynay laakiin waxaad malaysaa haba maxuma in gudaafad iyo dhul iyo laga talabo aan baxtan dawlad la boobo in haddana dambi qaran ay tahay markii koodish banaan laga hadlayo xeerka waddanka u degsan marka waxa waa ku naqaynay laakiin wax umada la yaab iyo fajac ku noqotay in dhulkii la yaqlo orajay booliis iskool booliisiya oo ahayd qabuuraha dadka lagu aas inta badan ku aasiin dad mas'uuliyiin hore iyo kuwa daba iyo abwaaniin iyo fanaaniin ku aasiin iyo dadka weyno shacab ah in la yiraahdo dadka meedadka la baxa halkan gidaar lagu wareejiyay taas idoo la liyaabsan yahay haddana waxaa isla markiiba ninkii oo ajakas lamiix dadkiisa ay saarteen in haddana ilmihiisa loo hanjabay yiraahdo hadalkii ka laabta oo taliya booliska taagan yahay midka afyeenka booliska dhaha marka dhimale waxa waaye nabar la filayn naxdin ma leh nin walba camalkii oo sameeyo camalkii lagu yaqaan oo baysameen xukuumadan sideeda macna dawaan naqaanad gudaafad laga daba orday in wax la musuqmaasuqay in wax la daba gediyo ma ahan xitaa waqtigan sharciga waddankan loo dhaariyay inay laashay la burburiyay kadibna loo talaabay in beelaha madax la isku waliyo oo dagaalada ku dhacay waa aragtay koonfur galbeed ka bilowday mudugda sidoo kale in la isku dayay dagaal laga riday Puntland waa tii xigay intiqaabaadka ku jirtay marka wixii loo dhaartamaana wax kale labad kale ay caqti qaadeen taasna institution iyo dawlad iyo nidaam iyo idaar saas kuma sameysmo dawladnimada lagu sheegay waa shaqaale oo shacabka in loo khidmeeyo shacabku waxay dhawaan in laga ilaaliyo marka talayaa malaha laakiin waxaas waxay ku dhacay mas'uuliyadaas qaadanayo xildhibaanadii waddankan u dhaartay oo shacabka matalayay oo shaqadooda gabiyay nin afkaartiisana ay rabaan ninkii sharciga ay doorteen inuu ayaga oo ka awood bato oo soo raba ay u maamulo xildhibaanada iyo joogaan oo 300 oo daadada gaareen dambiga ku tahay marka waxa waay hadda xukuumadda ida waqti iska dhamaaday 1400 iyo 5 cisho u hirtay marka waxa sugnaa waa in labada sano kadib doorashada waddanka ee qaban doonto
marka والله doorasho rabtay inay qabato ma leeyahay in lagu dagaal doono ay u eg tahay balkii aqal doorasho qabanayo uma eka see ku sii haysanaa xisaabtana ku jira maan kuma wajirtaba dalkan markii waxa iska caado noqotay ninkii la geeyo teendada madaxweyne la geeyo teendada teendadu madaxweynimadiisu ku dhamaataa marka teendadii lama maqli karo wadnaha go'aa marka teendada la maqlo markaas lagu leeyahay doorasho coday qof la aada doorasho waddanka registration mana war 10 sano dambe xataa la aadi karo marka waxay kula tahay doorasho la aadi karo abu adoo maasan wari axmed waa maasantay aan sida dadka waxaa ka mid ah oo dowladda dadka siyaasadda iyo aragtida iyo ideolojigeeda la dhacsanayeen in iska mucaarada banaankaas taagan u baahay oo dadka Soomaaliya ka mid ah dowladda dii aad taagan sharci iyo qaanuun ku taagan dadka qabato waa in la taageero dii qaanuunka la xataa waa in la tusiyo oo waxa meesha ka toosta kaloonta la sheega doorashada inta abu xaliila electionka waxaa ka horeysa amniga ka horeeya amniga ka horeeya oo ahmiyada koowaad ah in deegaanada la isku furo ogta koonfurta Soomaaliya inta badan isku furno oo degmooyinka qaar ee dowladda joogto waxaa ka horeysa dhaqaalihii waxaa ka horeysa macna dadka in diiwaangashiin waxaa ka horeysa doorashada guddiga doorashooyinka qabanayno dhisayeen guddi ma dhisna ogta waxa la meeriyo guddiga la kala diray waxaa ka horeysa in macna dadka xisbiga ka qaybgalaysa inta macna sida macna la isku soo harayo halka la qabanayo حتى كما سوق الدرشقة في عود عندما أنا أقول حتى واحد ودي لسنا كلا سيد دقمي حرت كلا تاع دي لسنا بس أفمد دوبي كلا تاع أفجوي وحبات إذا نفتيد حبات اللوجستيك حبات إذا فرصنا في هذه لكن بنمد حتى الدرش أنا وقت كلا نلوج هاي أحمد وقت كان حقوق جرا وقت كان وحوا سيس معنا قلنا لينا يجتمع الدولة يرتقى عندك واحد داتا الغالية داتا يأمنوا لما كان درت دو أركيس لو جوجي ما ماشي كل دبيسي من وراء صوت على الموقدي حق مدحونا الموقدي مركو رسمت أسأل جوا ديك وش يقولوا ولا في إنه تجديدي لبدي مدحونا هراء أودين هذا حالتي أودين إنسان معمول كذا حاجة جديدة دولة الهشيسية سي وودك أربع قفصة كان الشغل قارك الله يعني واستغن مركو حكومة دي استاكتي دي مدحونا وركعايو الشركة أسأل أخو بقى دوات اللي إما واي أو دول جوالدي أفرت أسأل وسكالينا أنا قدر أسيبتين مركا وضع حقوق جد حالات إلهي وحتى سعادة سوء أدنى بلا صوصه إنه إلهي حالنا بدي مان أبى قولين كلا بيش عالم كأنه سوفر قلنا حالات مروك سنة وضع كجرتو قارين سي صعده مركا وقطر بكسوقي هاي مركا قبل الله وسيكر تجا بدنا هالكاس استاكتي بدنا هالكاس استاكتي هالكاس استاكتي وهذا دولة حركة وجري wax oo ma jira macnaha qaanunka Soomaaliya ku heshiisay oo meel gaar ayaa laga talaabay qaanunka Ameerika lagu soo meel guri aan la garanay iyo habraaciisa iyo isoo loo mar ayaa la qaatay waxa barnaamijka naga faafay waxaan rabaa inaan dib u soo arintan isku buusi musuqmaasuqan waxa ku jira nin Cornela oo wali aan saxabahayn aan xariiste wali aan saxaba gaar aan aadan biid maxaan ku yiri ilaaha ku dharshay maslada arinta waxa gacmaha dawladda kama dheer mislada wari axmed waa maasantahay nin warbixin oo shalay darata la qoray ayaa sheegaysa inuu bartiisa Facebook oo soo geliyo oo dhahay haddii xiriir dabdamiska wax la qabo waay ma in booliska xarumada loo soo laabto miyaa xaq oo dhahay anaa kulli markay laakiin dad shaqada ka soo maqal laakiin saas oo dhintay aadan bid waxa horta saas sheegto waay marka waa booliska rasmiga ah oo dalka wax soo barta akademiga ah waxa ku maay Allah naxariisto eheladiisii sabir iimaan la ka siiyo waxaan leenahay jannada firdawsan Allah ka waraabi gacan gardarna disho mislada marka musuqa halkaas gaaray in xukuumaddaanu xukuumad inay sii joogto macnaha aqligeedu macnaha aqliyada saaso ma sii socon kartaa dalka inuu qalqal galo siyaasiyeed ma laga yaabaa mislada waqti labada sano ma dhamaysanba oo dhiman وهي أحمد وعماسته وشعبينا والسلام يا صوماليد ملك سيدوان الله نعمس وروتي عادي هذا دين حالة أساس أنا وحس بدلا وعليا إنه ودك كراسي سنة وقلا وودك حالة قطر وقلا وبقى معقول لكن دين سنة ساعة سؤال دين إلهي نوم كان المر دقيق بالرجال لكن ده أبودك دين قلوي كان سوف رجلين أبو أسكرنا وقعت لك وأنا كل لو صور قل ونعكل وأسكروه كلا marka ogta darata in ciidamadii xoogay iyo harantu wuxuu logisticada la musuqmaasuqay marka musuqmaasuq meesha uu dirso maraya marka baqadintaas waa jirta aad in wadanka inuu xaalad hubataan inuu galo qatar oo hay'adaha oo wixii institutionka nidaamka meesha ka baxo qatar marka mar walba khayrka la jeeyo insha Allah xarajin insha Allah in dadweynaha oo
waddanka adduunka kule gacanta kule eeganayo meeshan waddanka waddan istaraatiiji oo mar oo adduunka caalamka kala goosho marka ma ogolo xitaa dawladda dariska ogol in waddankaas inay foodada inay ka dhacdo waayo nafi maal bay shisheeyaha ku bixiyay si waddankaas uu degan lahay marka ma kule insha Allah waa hadii wax isbedel insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inay ka waatamo doonaan waxyaalaha ku socda marka waana maasta wariyaha aad iyo aad ma santahay halkaas aan caaw barnaamijkeena ku soo gabagabeynahay saacadaha aad iyo aad waxaan mar labaad iyo saddexaad ciidanka booliska Soomaaliyeed xaasaska qoysaskooda ugu tacsiinay aadan biid oo ahaa saraakiisha runtii gobolka oo muhiimka ah oo dadka cun soo bartay waxaan kaloo tacsiinayaa saraakiisha saraakiil-xigeenta alfida jarnaalada dhammaantood ayaan u tacsiinaya waxaan leeyahay allah yarxamo allah naxariisto dadka dhan anaga naga tagay aadan biid insha Allah sharciguna waa shaqeyn doona maalin un maalmaha kamid waa la soo qaban doona gacantii ka dambaysa ugu dambeyntii waxaan rabaa halkaa marka inaan uga hadlo ugu dambeyntii maadaama barnaamijkeena gabagabeeye waxaan rabaa inaan halkaan uga hadlo meeshaan waxaan ka wareysanaa cabdifataax afayeenka gobolka taliya afayeenka booliska Soomaaliyeed oo nin yaro firfircoona waa ka xumahay mararka qaarkood waa kaftanaa waa wada sheekaysan waa isdoqeynaa marka xoogaa hadalaa ka soo fakaday oo uu kaftan aniga la waday ma uusan maleynin inaan barnaamijka live ugu jiro oo barnaamij live u yahay laakiin wuxuu yiri imaarad xoogaa hadal la yaraa ka fakaday laakiin ummadda ma wax loogu talagalay media labadeen wax isleeyin waaye annagu ma wargelin inaan wacaayo maxaa waaye ana lafteeda waa inaan wacaayo kuma imaarad ii sheeg ma aan wargelin oo balse inaan wargelin waa jeclaa laakiin waa qalad dhaca qaladkaas waa mid xaggii ka dhacay marka stuudiyoon ugu furaa laakiin saaxiibkeena wuxuu maleeyahay mindhaa inaan kaleega ah waa iska kafta waa Soomaalida waa kaftantaa waana iswareystaa halkaas aan caaw barnaamijkeena ku soo gabagabeyno waan Axmed idaacadda dhahay habeenkeedii waxaan aad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barnaamijkan barnaamij lamida oo falaqaynta siyaasadda ayaan insha Allah ayaan nobolama waana Axmed oo dhahay habeenkeedii waan aad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeena nabada ummadeena isfahamta iyo musuqa oo noqdo mid amaaratay waa loo caal waaye xakamayntiisa la waa ilaahay wax kamay Allah ku taariikhdu dadkay bartaa dunida waa